بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، رسالة دقدقة waxay ku socotaa ama ay la magac baxday ridwaanay raxmada Allah kama raajiyo. ridwaanay raxmada Allah kama raajiyo. Allahumma aamin. gabadhii magaalada Goldogob ay dhalinyarada ay ku faraxumeeyeen qof kasta oo muslima, qof kasta oo Soomaali ah ay si gooniya u taabatay. wallahi markii aan maqlay waxaan mooday inay gabadhayda tahay oo ilaahi ah. qalbigaygu waa gilgishay, maxaa yeelay gabar kasta oo Soomaaliyeed waa gabadhaydii, gabar kasta oo Soomaaliyeed waa hooyaday, gabar kasta oo Soomaaliyeed waa xaaskayga, gabar kasta oo Soomaaliyeed waa eedaday, gabar kasta oo Soomaaliyeed waa habaryartay. dhibka loo geysto gabar kasta oo Soomaaliyeed anaa la ii geystay. نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه المؤمن خفك مؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام مؤمنين توهالشك، مؤمنين توهالشك شركاga haday hal cidi ay ka xanuunsato, hal ilig iyo hal gows iyo hal dheg, hal il, hal gacan iyo hal lug, haddii jirkaagu uu xanuunsado ma seexanayaa jirka kale? la, waa u soo jeedaya Soomaa. sidoo kale mu'miniinta muslimiintu meel alla meelay joogaanba, qof muslima oo beri ah oo aan dambi lahayn in dhibka intaa dhan loo geystay waa wax laga seexan waayo, waa wax laga danqado. saadaradeed gabadha waan u ducaynayaa. dad badan baa ka hadlay, ama wixii xugun ah culumada meesha ay joogto gabadhu ay arintu ka dhacday, culumo ayaa jooga, fuqaha ayaa jooga, ayagaa xaqa marin doona. Allah subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku qoray ciddii ijraamkaa samaysay, ciddii dulmigaa samaysay, ciddii xadgudubkaa samaysay, innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah. intaas oo dembi ayay yeelan doonaan, waan arki doonaa. xataa culummada qaar ka mida ay dhaheen ridwaanullahi tacaala calayhim ajmaciin, nimanka waxaa sameeyey hadday makhraatiga u caddaado intay gabar xoogaan inay haddana waxaa ku sameeyaan, markii cuquubada ayaga la marinayo xataa laga tago in xataa meher laga qaadayo, xataa meher laga qaadayo. wax alla wixii cuquubo ah oo xad ah oo maxaa la yidhahdaa ay muteen kama hadlayno, culuma u joogta. laakiin waxaan leenahay maanta waa fursad weeye. ha laga ilaaliyo xeer jajab, ha laga ilaaliyo alqabaliya, ha laga ilaaliyo wax. maanta waa jaanis. waxaan dhihi karaa ridwaan waxay maanta ay albaabka u furtay gabar dambe oo Soomaaliyeed inaan arrintaasoo kale lagula kicin. waxayna ku xiran tahay jazaha iyo cuquubada la mariyo cidda ficilka ka dambaysay. waxaan doonayaa oo kale inaan dhaho oo aad iyo aad muhiim u ah oo daruuri ah in si wanaagsan loo maqlo. gabadha muslimadda ah in la garab istaago, ayada iyo waalidkii dhalay, hooyadii dhashay. hooyada waxaan u maleeyaa shukriya in la yidhaahdo, yacni in la garab istaago. iyo gabadhana waxaa la yidhahdaa ridwaan saxardiid ayaa la yidhaahdaa. in la garab istaago, iimaaniyan lagu garab istaago, maadiyan lagu garab istaago, xuquuqda ka maqanna loo raadiyo. waa waajib dadka muslimiinta asaaran. ilaahay waxaan weydiinaya subxaana wa tacaala inuu gabadha u boogadhayo. anu ducadaas baan kelimada u soo jeedinayaa, waana midaan u bixiyey ridwaaney raxmadda Allah kaama raagto. ilaahay caafimaad ha ku siiyo, wixii lagu gaadhsiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaaga boogadhayo. in alla inta arrintaa ka danqatayna yaynan dab sii shidin, yaynan baasiin sii hurinin, yaynan sawirro xunxun qaadqaadin, laakiin wixii islaaxa ha laga howlgalo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. gabar Soomaaliyeed oo badan, gabdho Soomaaliyeed baa la kufsaday oo badan, laakiin tani maxay kaga duwan tahay? waxay kaga duwan tahay in social media la soo geliyay
xumaantii in la soo geliyey. marka waxa weeyaan waa xumaantii oo la cadaystay weeyaan, ijraamkii oo bannaanka la soo dhigay weeyaan, fasahaadkii oo bannaanka la soo dhigay weeye, suu'ul khuluq waa akhlaaq xumo ziyaada ah oo bannaanka la soo dhigay weeye. walidaalika bay cadaaladdu iyo islaamku iyo dadka culummada ee diinta garanaya inay aragti khaas ah ku eegaan oo ay xaqooda siiyaan, xaqa uu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala, xaqu alla ku abaalmariyey ayaan ilaahay ka rajaynaa inuu culummada maanta arrintaa ku jirta inuu waafajiyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. ilaahay gabadha ha noo caafiyo, gabdhaha soomaaliyeedna ha noo xifdiyo oo ha noo ilaaliyo. qof walbowna ka warqab gabadhaada iyo caruurtaada ka warqab biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. hada wabillahi tawfiiq, wasali allaahuma wasalama wabaaraka calaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. abaryartay dhibka loo geysto gabarh kasta oo soomaaliyeed anaa la ii geystay. nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyahay, almu'minu qofka mu'minka ah mathalu mu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxumma, aw kama qaala calayhi asalaatu wassalaam. mu'miniintu waa hal jig, mu'miniintu waa hal jig. jirkaaga hadday hal ciddi ay kaa xanuunsato, hal ilig iyo hal gaws iyo hal dheg, hal il, hal gacan iyo hal lug, haddii jirkaagu uu xanuunsado ma seexanayaa jirka kale? laa, waa uu soo jeedayaa soo maa. sidoo kale mu'miniinta muslimiintu meel alla meelay joogaanba, qof muslima oo berii ah oo aan dembi lahayn in dhibka intaa dhan loo geystaayey waa wax laga seexan waayo, waa wax laga danqado. saa daraaddeed gabadha waan u ducaynayaa. dad badan baa ka hadlay, amaa wixii xugun ah culummada meesha ay inuu gabadha u boogadhayo, anu ducadaas baan kelimada u soo jeedinayaa. waana midaan u bixiye ridwaaney, raxmadda allah kaama raagto, ilaahay caafimaad ha ku siiyo. wixii lagu gaadhsiiyey ilaahay subxaana wa tacaala ha kaaga boogadhayo. in alla inta arrintaa ka danqatayna yaynan dab sii shidin, yaynan baasiin sii hurinin, yaynan sawirro xurxun qaadqaadin, laakiin wixii islaaxa ha laga howlgalo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. gabadh soomaaliyeedoo badan, gabdho soomaaliyeed baa la kufsaday oo badan, laakiin tani maxay kaga duwan tahay? waxay kaga duwan tahay in social mediaha la soo geliyey, xumaantii in la soo geliyey. marka waxaa weeyaan waa xumaantii oo la cadaystay weeyaan, ijraamkii oo bannaanka la soo dhigay weeyaan, fasahaadkii oo bannaanka la soo dhigay weeye, suu'ul khuluq waa akhlaaq xumo ziyaada ah oo bannaanka la soo dhigay weeye. walidaalika bay cadaaladdu iyo islaamku iyo dadka culummada ee diin joogta gabadhu ay arrintu ka dhacday, culummo ayaa jooga, fuqaha ayaa jooga, ayagaa xaqa marin doona. allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku qoray ciddii ijraamkaa samaysay, ciddii dulmigaa samaysay, ciddii xadgudubkaa samaysay, innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah. intaas oo dembi ayay yeelan doonaan, waan arki doonaa. xataa culummada qaar ka mida ay dhaheen ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin, nimanka waxaa sameeyey hadday makhraatiga u caddaado intay gabarh xoogaan inay haddana waxaa ku sameeyaan, markii cuquubada ayaga la marinayo xataa laga tago in xataa meher laga qaadayo, xataa meher laga qaadayo. wax alla wixii cuquubo ah oo xad ah oo maxaa la yidhahdaa ay muteen kama hadlayno, culuma u joogta. laakiin waxaan leenahay maanta waa fursad weeye, ha laga ilaaliyo xeer jajab, ha laga ilaaliyo alqabaliya, ha laga ilaaliyo wax. maanta waa jaanis. waxaan dhihi karaa ridwaan waxay maanta ay albaabka u furtay gabarh dambe oo soomaaliyeed inaan arrintaasoo kale lagula kicin. waxayna ku xidhan tahay jazaha iyo cuquubada la mariyo cidda ficilkaa ka dambaysay. waxaan doonayaa oo kale inaan dhaho oo aad iyo aad muhiim u ah oo daruuri ah in si wanaagsan loo maqlo. gabadha muslimadda ah
in la garab istaago ayada iyo waalidkii dhalay hooyadii dhashay hooyada waxaan u maleeyaa shukriga in la yiraahdo yani in la garab istaago iyo gabadhana waxaa la yiraahdaa Ridwaan Saxardiid ayaa la yiraahdaa in la garab istaago iimaaniyan lagu garab istaago maadiyan lagu garab istaago xuquuqda ka maqanna loo raadiyo waa waajib dadka muslimiinta asaaran ilaahay waxaan weydiinayaa subxaanahu wa tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد رسالة دقدقة waxay ku socotaa ama ay la magac baxday ridwaanay raxmada Allah kama raajiyo ridwaanay raxmada Allah kama raajiyo Allahumma aamin gabadhii magaalada Goldogob ay dhalinyarada ay ku faraxumeeyeen qof kasta oo muslima qof kasta oo Soomaali ah ay si gooniya u taabatay wallahi markii aan maqlay waxaan mooday inay gabadhayda tahay oo ilaahi ah qalbigaygu waa gilgishay maxaa yeelay gabar kasta oo Soomaaliyeed waa gabadhaydii gabar kasta oo Soomaaliyeed waa hooyaday gabar kasta oo Soomaaliyeed waa xaaskayga gabar kasta oo Soomaaliyeed waa eedaday gabar kasta oo Soomaaliyeed waa